Okay, so today we're gonna do the Somali dialect challenge. Yeah, okay. So today. The first sentence is I went swimming and I seen fish. Okay, maanta Mhm. waxaan aaday nabadda kusoo dabaalado. Haye. Waxaan arkay malay. Ama say mukuleel. maanta badda baan aaday danana dabaalnay baan kalluun weyn baan arkay Okay. bam tashbahiye Anigana waxaan tagay oo soo dabaalanay waxaan arkay Malay. malay baan soo arkay. malay Yeah. The second one is I walked my cat outside. Aniga bisadaydi waan soo wareegsanay. So wareegsan is crazy. Ani iyo yurtayda banaanka aadna inaan soo socono. anigii bisadayda waa israacnay waan soo wareegnay waan soo soconay exercise baan soo sameynay I went to the store and got some candy. Tukaan kan tago waxaan soo yar qaatay nanac nacnac baan soo qaatay. Suuqan aaday Haye. waxaan soo qaatay nina. suqoonada nanac waan soo qaatay waa isoo soo bad Haye, I went to school and my teacher was rude. Iskoolkan aaday macluumaadaydiina edeb darro ilaad. bilaadab waaye Schoolkan aadayo Haye. macluumadeeda xaasidad bay ahayd. iskuulka baan aaday macluumaadada garacad waaye What is going Garacad on? was not in there cooking. I don't know The fourth one is there is a big back person over there, and I say, "فوق ما هنا محل." محل كلمتي. Wait, what's the question? There is a big black person over there. dabar weyn le oo tuur le Wait. Of tour la meesha jooga. Oh, tour win. Tour. dabar weyn The bitch said, fuck away. A car. Okay. Okay, go. The fifth one is a car almost hit me and I almost flew across the street. Gary, way good garo. Ha. daqada waan ka dhex Gary, way good garo. Ha. Let's stop saying garo full ass. Gary. saanka miya tiri No. I'm just gonna just add it. Aniga Gary bay igu dhici gaaro. Waan duuli Gary. anoo maanta gaariga wada baa gaari xagga dambe igaga yimi dan aniga daqad waan ka dhex bixi gaaray That person over there is loud. Qofkaasi qaaxo weyn buu leeyahay. qaaxo maalintii bay ahayn Qofkaas. I also got him in banana. Buu say qaaxo. Like a loud qofkaas person. uu qaylo badan yahay